madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu u badinayo Ruushka inuu weerari doono Ukraine balse wuxuu sheegay inuu Mareykanka ka bixinayo jawaab adag tijaabada uu Ruushka tijaabinayo reer galbeedka. Biden wuxuu sheegay inuu Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka uu la kulmayo cunaqabatayn abadkii aan soo marin hadduu weerar ku qaado Ukraine. dowladda Ukraine oo ah dal yar oo xiisadaasi xudun u ah dhankeeda waxay sheegtay Ruushka inuu cabsi gelin ku hayo iyada oo ku baaqday in la sameeyo dadaal kasta oo diblomaasiyadeed si dagaalka loo baajiyo. xiisada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee uu Ruushka ku soo daabulayo xuduudda Ukraine ayaa cirka isku sii shareereysay maalmihii u dambeeyay. hogaamiyaasha dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa ka digaya waxa ay ku tilmaameen halista Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa digniin adag u diray dhigiisa Ruushka Mr. Putin. shir jaraa'id oo ku xusayay sanad guuradii ka soo wareegatay markii uu xilka qabtay ayuu Mr. Biden waxa uu ku hanjabay in haddii Vladimir Putin uu weerar ku qaado Ukraine uu ku soo rogi doono cunaqabatayn aysan weligooda mid la mid ah arag. madaxweyne Biden ayaa intaa ku daray in hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ay ku midaysan yihiin baahida loo qabo in ay tallaabo qaadaan haddii Ruushka uu weeraro Ukraine. waxay ku xirnaan doontaa sida ay wax u dhacaan balse haddii ay dhab ahaantii sidaa sameeyaan oo ay adeegsadaan ciidamada ay xadka Ukraine soo dhoobeen waxay noqon doontaa musiibo Ruushka ku timid waa haddii ay isku dayaan inay Ukraine qabsadaan. xulafada iyo saaxiibadeennaba waxay diyaar u yihiin inay qasaaro iyo waxyeelo la taaban karo u geystaan Ruushka iyo dhaqaalihiisaba. tiro ka mid ah wadamada midowga Yurub ayaa ka walaacsan saameynta ay cunaqabataynta Ruushka ku yeelanayso dhaqaalaha dalalkooda. hase yeeshee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale sheegay in Ruushka uusan awoodin in uu Yurub ugu hanjabo in uu gaaska ka jari doono. qof kasta wuxuu ka hadlayaa sida Ruushka u maamulo tamarta Yurub ay isticmaasho bal qiyaas waxa dhacaya. lacagta ay ka helaan tamarta ay Yurub u dhoofiyaan waxay uga dhigan tahay 45% dhaqaalaha Ruushka. uma arko in ay tahay saameyn hal dhinaca balse haddii ay gooyaan waxay la mid tahay hooyaday hadalkii ay oran jirtay sanka ayaan kaa qaniina si aad wajigaaga ii tusto. madaxweyne Biden oo la weydiiyay su'aal ahayd waxa uu filayo in uu yahay qorshaha Vladimir Putin ayaa ku jawaabay waxaan u maleynayaa inuusan weli rabin inuu qarxo dagaal buuxa miyaan u qaataa inuu awoodiisa ah inuu ku tijaabin doono awoodda reer galbeedka tan Mareykanka iyo tan gaashaanbuurta NATO. waxaan filayaa inuu taasi sameyn doono laakiin waxaan filayaa inuu wax badan uu ku bixin doono oo uu hadda u maleynaynin inuu qiimo intaa la eg ay ugu kacayso. waxaana filayaa inuu ka shalayn doono haddii uu sidaasi sameeyo. Moscow ayaa beenisay in ay qorsheynayso in ay weerar ku qaado dalka yar ee Ukraine balse waxa ay ciidamo badan soo dhoobtay xuduudda labada dal. ciidamo lagu qiyaasay 100,000 oo askari ayaa ku sugan meel u dhow xuduudda labada dal taasi oo qalqal gelisay dowladda Ukraine. dhinaca kale isniintii xogayaha difaaca ee Ingiriiska Ben Wallace ayaa ku dhawaaqay in Britain ay siinayso Ukraine gantaalada ridada gaaban ee lidka taangiyada si ay isugu difaacdo. waxa uu sheegay in koox yar oo ka tirsan ciidamada Britain ay sidoo kale bixin doonaan tababaro ay siiyaan ciidamada wadanka Ukraine. Mr. Wallace ayaa markii horeysay uga digay Moscow in ay jiri doonto cawaaqib xun oo ka dhalan karta talaabo kasta oo Ruushka u qaado dhanka Ukraine. Britain waxay u taagan tahay inay ka hortagto oo ay hor istaagto cagajugleynta si kasta oo khilaafku u fogaado ayuu yiri. xukuumadda Washington waxay ku adkeysanaysaa in uusan jirin waqti badan oo la lumiyo tallaabo degdeg ahna la qaado. criminalka ayaa meesha ka saaray sheegashada Washington waxaana ku tilmaamay mid aan sal lahayn. reer galbeedku haatan waxa ay Ruushka isku dayayaan inay ka hortagaan waxa iman kara ama tallaabada xigta ee uu Ruushka qaadi karo.